واسكو دقينا كوا يرير waxaan arkay flyerkayga istalaab ta soo saaray kaba yar waa baaqat kabta xaaj showgeedii cancel camal Drama show adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin balanta ayaa ahayd inaan dib isugu soo laabano allana wuu idmayah ku soo dhawaada barnaamijkii Drama show ka daawataan Soomaalida shidan oo mar walba idin soo mardhiga wax walbo aad maanka ku haysaan Drama show adiga kuma dan lahaane dadka iska soocin hoy maanta waxaan idin kugu haynaa barnaamijka kabta xaaji hadal cadideeda iyo fiiqfiiqeeda ayaan idin haynaa fanaanadii Hargeysa showgii lama ilaawanka ay ka dhigtay oo waxaan ku yiraahdaa reer Hargeysa oo dhan kilkilaa waxay lacag ku hayeen soo wada bixin showgu soo wada horeen baa iminka baxayso Europe hadana show kala ku dhigayso waxay ku dhigaysaa Jarmalka fanaanada kaligeena maahan markan loolanbu showga ka galay kaba yar mar walba loolanka way u bareeday iminkan ayaa halkii kula sugan oo kula qaban doona la yiri waa leel baleel xitaa waxay ka sheeganaysaa farxiyo kaba yar showgeedii la fiiqay ciyaal yar yar oo waxay tiri caruura intaan heesay baa fiiqay showgeega masaajidka ciyaarta laga daayay taaganta Dhukura Diamond markii Hargeysa tagtay dhukurada diidi jirtay waa tila baxday oo markii garoonka ka tagtay Dhukura Diamond waa joogtay landeernimo waa tahay daawadayaal farxiyo kaba yar dhukuradan waa waagi hore diidi jirtay weeyaan Soomaaliya dhukurada waa waxay diidi jirtay dhukura ay dhahan uma socda Hargeyso fankeedan waxay tiri inay hooyada tahay ha isku qabto markii dambana waxay tiri dad qalbi wanaagsan waaye arfana qofka la sirsirahay in la faansho weeyaan intaasna in yar kaftana iga ahaatee waa lama kala xanaaqay maadaama barnaamijka daraama yahay hadal qalalan ma rabtiin xogaa in la idin suugayo cusba iyo dhandhanaanka iyo milix iyo sokorta lagu badiyo weeyaan farxiyo kaba yar iminka Happy New Year mar walba fanaaniinta dhaqaalaha ay ku tashtaan ay fanka u joogaan waa sanadka cusub iyo ciida markii la gaaro iyo markii sanadka cusub la gaaro fanka waxaan ku yiraahday showyi fanaaniintu ay kala shaqo tagaan laakiin farxiyo kaba yar hadda kor ay ciid maysa maana qaban show ciidna uma fadhiyo inaan show qabto talo ma soo qabatay dib loogu laabtay taaganta daawadayaal horta wax yaraan rabay in aan ka hadlo laakiin taasina waxa laga yaabaa inaad markii aan farahas galo aad sharbaha dhulka igu xirteen waxa jira khudbad uu soo jeediyay sheekheena Sheekh Umal uu yiri xayisiisida la saaray YouTube-ka waa xaraam uu yiri lacagta laga qaato marka waxa jirta channelkiisa oo channel khudbadihiisa badan jimcaha khudbad oo aqriyo oo waxaan ku yiraahdaa anoo ka warwarsan oo dhahay walaalayaal maxay tahay saano lacagti ma xaraam baa la shaqeynaya ba channelki waxaan arkay soo galin jira wacdigiisa iyo wixiisa khudbadaha jimcihi uu ka aqriyo masjidka oo xayisiis saaran marka waxaan isra sheekhu muu ogamiya maso channelkaas way u banaantay in xayisiis kala saaro taas ayaa shaki dad iga aqoon runtiina commentiga ayaad ku soo qori doontaan laakiin barnaamijka muusan ahayn in aan uga hadlo qaybtaas anaan culimada in aan faragashto la igama baran igana sugi meeysan laakiin su'aal ayduna isweydiinteeda la weeyaan wax isweydiin ma xume wax isweydaaris baa daran bay hore Soomaalidu u tiraaday markaan uu taaban la arko xogaa bal bulshadaada mar walba ku dhageysato la wadaag bay iga tahay mashaayixdu waa dhaxalka ambiyada weeyaan marka in wax laga sheegaa ma wanaagsan oo wax laga deeriyay aan ka soo gudbay aan hore u galay bal farxiyo kaba yarada ayaduna showgeeda ku qabanayso magaalada waa dalka Jarmalka iyo Yurub iyo meelo kale tagi doonta Allah waclam Yurub ay wareegi doontaa laakiin iminka halkaas ay ku qabanaysaa Jarmalkan qaxooti kuwii Liibiyo maro dhan iyo wixii Talyaaniga tago dhan halkaas ay isku arooriyeen meesha waa lagu shimuumaa la dhahay Dhukura Diamond ay maata deen maqlaan isii shinada amal lagu shamuumi doono oo maleynaya si ay badda uga gudbeen inay hoolka buuxsami doono hadda koorne wada aragteen in taariikh lagu dhigayaan UK ayada iyo ninka kale YouTuber-ka ay ka dhax dhaco walaalka adduunyo isku qoofalana jirta farxiyo waa lagu yaabaa markan ilaan Hargeysa martay aad ku yeeda joogtay meeshaan dad waxa jooga maaragtay lacag shaqeysanayo oo haddana uu kaaga sii horeeyay fanaan la yiraahdo Leel Baleel oo asaguna reer Afrika ah iyo iminka Yurub meel marmaraya bal arrinkaas ayada ayaaba ka hadlayso inay soo socoto dadweynaheeda wargelisay oo war bayaan u soo saartay bal iminka adinkuna inala dhageysta farxiyo Diamond ama Dhukura Diamond sida taqaanin ama kaba yaraba kabta xaaji الله asxaabtayda taageerayaashayda reer Jarmalka waa idin salaamay kabta xaaji waa idin salaamaysaa wax badan in badan ma la dhihi jiray waa idin ladanahay hadda waxaan idin sheegayaa kabta xaaji waxna waa sidaa waana soo socdaa waaye Jarmalka New Year-ka waa isku da'aynaa kuwa yaryar waxaan arkay flyerkayga istalaab ta soo saaray kaba yar waa baaqat kabta xaaji showgeedii cancel camal waraa ciyaarta joojiya isku facman lihine ciyaarta joojiya ciyaalaho yaryar attention ay rabtiin ciyaarta joojiya waa salaam asxaabta see you Frankfurt iyo New Year
هذا ما هنروح نفرد هذيك درتينا وشو من كريستو يا وجدان يا وكاسها وصاصع وكاسها شلنا love you guys see you Frankfurt مرلو الله إله وأنا وذي شوقي دون نادي فرحية كبيرة يراي مركها هالقاس كانت تدو هذيك يو الليل بليل ده هذا كورنا وحن إني هذيك يو يعني حسن قنتال ميا أو مقدشي شوقي دي كده عتي دين كل رعد والله هذا كورنا هذا عبد الرحمن وهذا سقبت كل الشوق ما هذيك على قاس وده بدك سدا مساعدة كده بدك سدو وأرن ماشي دي كجرتو لكن وح كونك سنان لهيت لابد إنه أنت يصير لك الشوقة وحي كصوبحنا كلا برتا إلين أضم ملك واحد اللي أقل بنان لقيتها هو برتن كتير كلها هني أضم ملك بس أصلا يا اسكو بيجو ويسكو باهين هنا الروايات دي هبليه وهاد ما تقرسن دونتان الكيبي كجرتا دي دونتين أنا هاد هراء إذن كجسي شيء الروايات داس هبليه هو هاد ما تقرسن دونتان وعام بحذي أيو كجرا قوي قاسي مركز كعمة ودي شربي وحقوق بتاني أدونكو إسرائيلو شوقي كقيب قاتل بدي النبأ ووحي كصوب حنا كلا قيب سادة هنقولي يوسف طبع عمل سيد على تبا وين إذن كوفر منه فرحي كبير ما دام هذا واسي شقيسة هرتان وين أنقو آمين ما عند أرنكاس لكن وين يرو ماركته إيه طلع أنت تلاقي إذا يرويان waayo hadda ka hor xasan gantaal iyo adiga ayaa muqdisho isku qabsaday oo muqdisho markii hadda ka hor showga lagu dhigayay xasan gantaal oo halka tagay ka dhacday waa loogay farxii ka weeran hadda ka hor waxay tiri Nairobi baa show la iga baajiyay oo waxay tiri qabiil kamid ah qabiilada Soomaalida inay show iga baajiyaan oo Nairobi ayaga xog ku haystay tiri la'aantoodna show lama dhigi karo muqdisho markii la tagay waxay tiri aniga sharb ku leh ayaa iga hor iman karo hadda jarmalka ayaa sharb ku leh talow waan wada fadhin doonaa inaan wada heshiisiin inaad shaarba iska xirteen waa la wada arki doonaa haddii alla yiraahdo annaguna haddii aan daraamanahay isha ayaynu ku hayn doonaa oo waan soo tabi doonaa wixii halkaasi ka dhaca shar iyo khayrba hadduu allah awood raali ka noqdo oo waan idiin soo gudbin doonaa waa tahay daawadayaal qaybtan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa qaybteeda kale intaan ku kulmi doono amaan allah ayaanu idin leenahay iyo ismaqal dambe oo xiiso leh laakiin waxbaa jiraan maryahan idinka codsantay inaad nagu soo biirtaan soo maysahayn oo asxaabtii haddii aad ka heshay inaad la wadaagto asxaabtaada baryahan waxaan ku yidhahda barnaamijka hore ayaanba kasoo gebagabeeyaa in aan idin sheeg intaas waa waaye barnaamij show moogta waa barnaamij idinka aad u baahan tihiin dee waxaad iisoo gudbisiin ayaan idiin soo xaqiijiyaa oo halkaan idinkuu soo bandhigaa marka la wadaag asxaabtaada naguna soo biir si aad uga mid noqotid bahdeena Soomaalida shidan gaar ahaan anigoo cagma dhigaani Soomaalida shidan runtii aad bay u ballaaran tahay gabdhiyo wiilal kalaba way ka shaqeeyaan oo way badan yihiin nasiib darrada jirtase qofkii waxaan ku yiraahday soo hadlaba waxa leedahay waa cagma dhigaani waxaan ku yiraahday hawshiina wata idin kama qaban kartay qaybtan intaas ayaan ku saafmeerinaa
eydan abu diray oobaalayey maamow ama oodanaga buray ama eydan abu diray